Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamay asxaabteyda qaaliga dal iyo dibadba meesha aad ku nooshihiin. Waxaa idin leeyahay caafimaad wanaagsan insha Allah dhammaanteenaba. Waa walaashiin deeqo janalkeygana waa deeqa xilna maasha Allah. Walaaleyga qaaliga waa mahadsantihiin maadaama mar walba i dhiirigelisaan. waa walaashiin deeqo oo caawa idin dhameystirayso amba maanta idin dhameystirayso sheekadii Maryan ayaa idin dhameystirayaa insha Allah. qaybtii labaad ee noo joogtay qaybtii saddexaad ayaan caawa idin dhameystirayaa insha Allah. daawasho wanaagsan. Maryan waxay tiri habaryarteeda habaryar dhigta ii soo dhaweey ayay ku dhamaatay. Maryan habaryarteeda waxay u tagtay waxay tiri habaryar haye maxaad ii sheegi rabtaa ayay tiri haddana. Maryan waxay ku tiri habaryarteeda waxaan rabaa habaryar in aad isaga tagtid ay tiri gurigan maadaama ay tahay guriga nafsadaada lagu dhibaateeyay ayay tiri habaryartii. waxay tiri habaryar halkee baan aadaa haddii aan taga ayay tiri habaryar macaan. waxay tiri meesha ka hor imaatay ayaad aadi kartaa ayay tiri inta uu ku dhibaateyn lahaa abtigaaga amba uu kugu diri lahaa ayay tiri nin aadan rabin amba ninkaa da-weyn ayay tiri habaryartii Maryan ayay ku tiri. Maryan waxay tiri haye habo waxaan rabaa in aan iska tago halkee baan ka baxaa ayay tiri habaryartii Maryan. Maryan waxay ku tiri habaryar halkee baan ka baxaa. waxay tiri guriga daaqadiisa ayaad ka bixi kartaa ayay tiri sababta oo ah waxay tiri abtigaaga banaanka ayuu fadhiyaa ayay tiri waxaana laga yaabaa ayay tiri in uu ku dhibaateeyo amba uu dhib kuu geysta ayay ku tiri habaryartii Maryan. waxay tiri waayahay habaryar waxaan kuu rajeynayaa cimri dheer ogow ayay tiri abtigeyga maadaama haye ayay tiri habaryar ii ogow abtigeyga waxaan rabaa abtigeyga in aad ii ogaatid ayay tiri macsalaamo waxaan kuu rajeynayaa caafimaad kheyr qabo. Maryan waa ay ka tagtay habaryarteeda waxayna aaday magaalo kale. waxay timiday meeshii basteejada ahayd oo basaska laga raacayay ayay timiday. Maryan waxay aaday magaaladii kale. markii ay tagtay Maryan waxay weysay qof ay la xiriirto ama qof ay la macaamisho because magaaladii cidna kama garanayso. habeenkii ayaa ku madoobaaday ama gobolkii ayaa ku dhacay iyadoo meeshii cidlada ahayd joogto Maryan. waxayna tiri ciirsi ma haysto cid ii maqanna ma lahan ayay tiri Maryan. waxaan rajeynayaa in uu Ilaahay wax waliba ii fududeeyo ayay tiri Maryan iyadoo aad u murugaysan. Maryan iyadoo meeshii ku walwalaysa waxaa u yimiday qof socda ayuu wuxuu ku yiri maxaa abaayo xilligan ku fariisiyo yiri halkan cidlada ah. waxay tiri meeshan waxaa i fariisiyay cidna kama garanayay ayay tiri magaaladan qof aan u tagana ma aqaano magaaladana waan ku cusubahay ayay tiri. wuxuu yiri soo dhawow magaaladan waa magaalo aad u weyn ayuu yiri waana lagu dhumaa cid aan kuu geeyo miyaad haysataa ayuu yiri. waxay ku tiri maya cidna ma haysto cid ii maqana ma jirta ayay tiri. wuxuu yiri ma raali ma ka tahay ayuu yiri in aan gurigeyga ku geeyo aad inta aad meel ka helaysid aad ku noolaatid uu ku yiri wiilkii. waayahay ayay tiri inaad i wado ayaan rabaa. wiilkii wuxuu yiri aniga iyo saaxiibkeyga ayaa meel wada degan ayuu yiri. wuxuu yiri saaxiibkaaga dhib ma lahan ayay tiri waxaan rabaa muddo gaaban in aan meel joogo ayaan u baahanahay ayay tiri meel aan joogo ayaan u baahanahay ayay tiri inta muddo gaaban ah. Maryan waa ay soo raacday wiilkii wuxuuna u keenay awoowihiisa oo guriga la degan.
Gabadhii way yaabtay, waxay tiri aaway saaxiibkaagii ayay tiri. Wuxuu yiri saaxiib kale ma ahan, waxa aan kuu sheegaya ayuu yiri waa awoowahayga aniga ila joogo. Waxay tiri oo waaba kaa da'weyn yahay maxaad ugu tiri ay tiri saaxiibkayga waaye. Wuxuu yiri awoowahayga ayaa saaxiib ii ah ayuu yiri, asiga ayaana ku kalsoonahay, wax waliba aan u baahanahayna asiga ayaa weydiistaa, asiga ayaana la tashtaa ayuu yiri. Maasha Allah ayay tiri, dad wanaagsan ayaa tihiin. Gabadhii gudaha ayay hore u gashay. Maryan wuxuu yiri soo dhawow walaashay qaali, waxaana kugu soo dhaweynayaa gurigayga ayuu ku yiri wiilkii. Gurigii ayay hore u gashay, waxaa la baray awoowihii. Waxa uu yiri awoowe maanta waxaa noo keenay miyaa taqaanaa? Asuu yiri maxaa waaye wiilkayga? Wuxuu yiri awoowe marti ayaa noo keenay ayuu yiri wiilkii. Soo dhaweey ayuu yiri martida, si wanaagsanna ula dhaqan ayuu ku yiri wiilkii. Waayahay ayuu yiri awoowahayga ayaan ku barayaa. Awoowahayga waa kan, gabadhan wadada ayaan ka soo waday, cidna uma joogto. Warsaas ha ku oranin ayuu yiri awoowihii, gabadheena waayay, hana dhihin mar kale. Qof marti ayaan keenay ayuu yiri awoowihii gabadhi. Bes Maryan gurigii ayay meel laga siiyey, waa ay seexatay habeenkii. Subaxii waagi markuu baryay waxay tiri wax aan raadsanayaa shaqo aan soo shaqaysto ayay tiri. Wiilkii wuxuu yiri aniga ayaa shaqo ku siinayo, aniga waxaan leeyahay ayuu yiri kambani aad u weyn oo dadka iga shaqeeyaan. Waxay tiri oo ma nin taajir ayaad ahayd ay tiri, waxaanba kuu maleynayay dadka dabaqada dhexa isaga nool ayaan kuu maleynayay ayay tiri. Maryan iyadoo wiilkii la hadlayso wuxuu ku yiri dhib ma lahan taas, laakiin hadda aniga ayaa kambanigayga ku geynaya uu yiri, waadna ka shaqo bilaabi kartaa, ilaa intaad doonto ayaad ka shaqeyn kartaa ayuu yiri Maryan wiilkii. Gurigii ayuu ka waday, wuxuu geeyay shirkadiisii, wuxuu siiyey shaqada meesha ay uga mudan tahay amba meesha ugu fiican. Maryan shaqo ayaa la siiyey, nolosheeda ayay meel ka soo bixisay. Markii horena waxay ahayd gabar aad iyo aad u karti badan. Maryan waxay muddo ka shaqaysaba kambanigii, waxaa ka helay wiilkii habeenkii garabka siiyey. Wiilkii ayaa jeclaaday Maryan. Wuxuu ku yiri Maryan haddii aan arrin ku weydiiyo miyaad iga xanaaqaysaa ayay ku yiri. Waxay tiri maya, waxaa tahay qofkii nolosheyda badbaadiyey ayaa tahay, waxaa tahay qofkii duurka cidlada ahaa iga soo waday ayay tiri. Abaalkaagana waxaan ku gudo ma aqaana ayay tiri Maryan. Wuxuu yiri abaalkayga in aad ii guddo maba loo baahna ayuu ku yiri wiilkii, sababta oo ah gabar walaashay ayaa tahay ayuu yiri. Wax alla waxaad u baahan tahana waa in aan kaa caawin karo ayuu yiri wiilkii. Waxaasna inaad ii mahad celiso maba loo baahna ayuu yiri. Labada qofne mahadsanid iyo waa ku mahadsan tahay iyo kama dhaxayso ayuu yiri labada qof oo saaxiibada ah. Marka waayahay ayay ku tiri waxaa tahay wiil wanaagsan, walaalo magacaaga ma ii sheegi kartaa ayay tiri. Wuxuu ku yiri wiilkii haa magacayga waan kuu sheegi karaa. Magacayga waxaa la dhahaa Xuseen ayaa la dhahaa ayuu yiri. Markaasay tiri haa magacaaga ma Xuseena? Haa anigana magacayga waa Maryan ayay tiri. Waaba saa haro kuugu sheegay ayay ku tiri. Waayahay ayuu yiri wiilkii. Bes wiilkii gabadhii wuxuu yiri waan kaa helay abaayo, waxaana rabaa in aan labadeena xiriir wadaagno ama xiriir jecel
aan wadaagna ayuu ku yiri. Waxay tiri hadda ma awoodo sababta oo ah ay tiri nolosheyda ayaaba kala bar ah ayay tiri. Sababtoo ah waxay tiri hadda xiriir ma sameyn karo aniga ayaa boroboleen igu furanay tiri Maryan. Bas wiilkii wuxuu yiri waxaas iska daa niyad jabka iska daa ayuu ku yiri. Maba loo baahno in aad niyad jabtid ayuu yiri abaayo. Wax waliba aniga ayaa hortaada keenaya ayuu yiri. Farxadda dunidana aniga ayaa ku hayo. Haddaad horumar rabtana aniga ayaaba ku haya ayuu yiri wiilkii. Maryan waaba sidii ay rabtay waxay tiri waayahay walaalkay waana u baahanahay in aan adiga saaxiibno. Marka wuxuu yiri aniga waxaan ka hadlayo ma ahan saaxiibtinimo ayuu yiri. Maryan wiilkii wuxuu yiri maba ahan in aan saaxiib kula noqdo. Aniga waxaan rabaa in aan ka dhigto lamaanahayga qaaska ah ayuu ku yiri amba xaaskeyga ayuu ku yiri wiilkii hadba saa u fahmi kartid. Waxay tiri waan ogolahay wax waliba. Wiilkii wuxuu yiri caawo xalfad ayaan qabaa Maryan. Waxaan rabaa xalfadaas in aan kugu martiqaado ayuu yiri. Waa inaad timaadid. Waayahay ayay tiri laakiin xalfadaha iyo waxyaabaha la midka ah waanba ka baqaa ayay tiri Maryan. Wuxuu yiri dhib ma lahan wax waliba waad iska baran doontaa. Waayahay ayay tiri. Wuxuu wacay gabar ay walaalayihiin wuxuuna ku yiri abaayo gabadhan waxaad geysaa koofeerka ama saaluunka geey waxaadna soo hagaajisaa timaheeda iyo weliba labiskeeda ayuu ku yiri wiilkii. Waxay tiri waayahay walaalkay. Gabadhii ayaa kaxaysay Maryan. Waxay geysay koofeerkii. Waxay u soo hagaajisay timihii labiskii maasha Allah ayay ka soo dhigtay. Waxayna keentay xalfadii ayadoo aadan u maleyneynin Maryan tii hore isbedeshay maasha Allah farxad iyo nolol cusub intaba u bilaabantay ayay timiday. Maryan xalfadii ayaa lagu soo dhaweeyay. Waxaana loo dhigay farxad aad iyo aad u muhiimsan. Waxayna heshay gayaankeedii u qalmay ayay heshay. Farxad ayayna dareentay. Waxay tiri inta aan noloshaada ka fahmayo wax aan rabaa in aan muddo aan isla sii socona ayay ku tiri wiilkii weliba si qaas ah. Wuxuu yiri dhib ma lahan abaayo wax waliba waan ogolahay ayuu yiri wiilkii. Markii muddo kadib xalfadii lagu baray dadkii ka soo qayb galay wuxuu yiri Maryan waa gacalisadeyda amba waa jaceylkeyga ayuu ku yiri. Dadweynihii xalfadii isugu yimiday ayaa ku farxay arrintii ayada ahayd. Waxayna dhaheen halkee baad ka keensatay gabadhan Cinderella u eg ayay dhaheen dadkii xalfada ka soo qayb galay. Waxayna ku dhaheen maasha Allah waaba aad iyo aad ayay u qurux badan tahay. Waa ayna kuu qalantaa ayay dhaheen dadkii xalfadii ka soo qayb galay. Ammaan kadib xalfadii ayaa dhamaatay. Maryan wuxuu keenay awoowihiisa. Wuxuu yiri awoowe gabadhan miyaad garanaysaa? Asuu ku yiri haa waan garanayaa gabadhii habeenkii oo aan ku dhahay waa gabadheyda hana dhihin martida soo ma ahan ayuu yiri wiilkeygiiyow. Awoowihii wuxuu yiri haa waa awoowe waa sax waa gabadhii iyada ahayd ayuu yiri. Maasha Allah ileen aad ayay u qurux badneed ayuu yiri awoowihii. Gabadheydii ayuu yiri soo dhawow mar kale ayuu yiri awoowihii. Wuxuu yiri awoowe ma rabtaa in aan gabadheyda kuugu yeero ayuu ku yiri Maryan.
waxay tiri haa awoowe waan u baahanahay in aad i tiraahdid awoowe waan u baahanahay wax qalbiga ii dejiya ayaan u baahanahay ayay tiri Maryan. Hadalka naxariistana waan u baahanahay ayay tiri oo muddaba ma arkin ayay tiri wax naxariis qof igu yiraahdo hadal naxariis leh qof igu yiraahdo maba aan arkin ayay tiri Maryan. Wayna ilmeysay weliba. Awoowihii ayaa qayrooday ama calool jilaacay wuxuuna ku yiri gabadheedii maanta kadib waxaan rabaa in aan kaa dhigto gabadhayda. Wuxuuna ku yiri haa awoowe waxay tiri waayahay xilligan laga bilaabo waxaan ahay ay tiri Maryan gabadhaadii. Sidii ayuu wiilkii iyo awoowihii iyo gabadhiiba isku barteen. Wuxuu yiri gabadheedii reerkaagii aaween ayay tiri oo ku yiri gabadhii. Waxay tiri awoowe aniga reer malihi ayay tiri waxaan leeyahay habaryar iyo abti ayaan leeyahay. Wuxuu yiri awoowihii aawey ayuu ku yiri hooyada iyo aabahaaga. Waxay tiri hooyaday iyo aabahayga waa ay dhinteen ay tiri waxaa isoo koriyay abtigayga iyo habaryartayda ayaa isoo koriyay ayay tiri. Wuxuu ku yiri dhib ma lahan. Maryan ayadoo qayroonayso weliba ooynayso ayuu hadalkii uga jawaabtay abtigii. Wuxuu yiri abti markale awoowe wuxuu yiri markale kuma weydiin doono ayuu yiri odagii. Waana ka xumahay dhibaatada ku soo gaartay ayuu yiri awoowihii. Waxay tiri dhib ma lahan awoowe wax waliba dunida waa ay ka dhacaan ayay tiri. Farxadda iyo murugadana qof ayaa hore ii yiri ayay tiri farxadda iyo murugadana waa daris. Haddana waxba uma arka ayay tiri Maryan. Adiga muddo kadib Maryan iyo wiilkii xiriirkoodii ayaa sii dheeraaday ama sii qoto dheeraaday jaceylkoodii micnaha jaceylkoodii ayaa sii dheeraaday wuxuuna noqday jaceylkii hirgalay amba galgaceylkii suurtagalay jaceylkii suurtagalay hadba adiga saad u taqaano maasha Allah. Muddo kadib waxay ilowday Maryan murugadii iyo rafaadkii iyo silicii iyo dhibaatadii faraha badneed ay soo martay ayay ilowday. Waxay gashay nolol aad u macaan nolol farxad iyo naxariis intaba ku dheehan oo Ilaahay ku maneestay ducadeedina Ilaahay uu ka aqbalay. Maryan waxa guursaday Xuseen ayaa guursaday ayayna noqotay marwadiisii. Maryan waa ay ka baxday murugadii faraha badneed rafaadkii iyo silicii iyo wixii ay ka qoomameynaysay waa ay ka baxday. Hore ayaa waxaa loo yiri sabraa sadkiisa ayuu helaa. Qofkii nolosha ku samro xumaan iyo samahaba Ilaahay ayaa qurbo ka fiidayo soomaa hore loo dhihin. Maryan Ilaahay ayaaba ka fiiday dhibaatadii iyo murugtii iyo walwalkii iyo fikirkii ay dareemaysay. Dhibaatadii faraha badneedna Ilaahay ayaa ugu bedelay farxad aad u wanaagsan farxad qurux badan nolol qurux badan iyo weliba qoys aad iyo aad u wanaagsan oo qoyskii ay la soo barbaartay ugu wanaagsan. Marka Ilaahay wax waliba uu awoodaa uuna bixiyaa galgaceylkana sahal laguma helo. Waa wax aad u qiimo badan waana wax aad muhiim u ah noloshana muhiim u ah. Nolosha jacayl la'aan ma socon karto. Waa qofka inuu lamaano leeyahay. Gabadhaas wax badan ayay soo silacday nolosha ayay ku silacday yaraanteedii ayay silacday. Hooyo iyo aabe intaba maynan helin farxadna may helin. Marka wax waliba hadda ayay horteeda yaalaan nolosheeda farxad iyo intaba waa ay heshay. Waxay heshay qof jecel waxay heshay family jecel waxay heshay wax waliba adduunka yaalo.
maasha allah ayaan dhihi karaa aniga. Ilaahay qof waliba waxa uu jecel yahay, ilaahay hamigiisa ha u rumeeyo. Nolosha qof waliba hamiga ay ka leedahana ilaahay ha siiyo. Maryanne sidoo kalena inta waxaan leeyahay ilaahay horumar ha gaarsiiyo, farxad iyo waxa ay dareemaan ilaahay ha siiyo. Nin walibana waxaan leeyahay kurbadiisa Allah feedo. Marka walaalahayga qaaliga waxaan leeyahay nolosha lamaana la'aan ma socon karto. Qof waliba waxaan u rajeynayaa inuu lamaano fiican oo qurux badan inuu helo. Qof waliba waxaan u rajeynayaa inuu farxad aad u weyn helo. Qof waliba dunida ku nool waxaan u rajeynayaa inuu farxo, inuu reen helo. Maasha allah. Nin walba hamiga uu leeyahayna ilaahay ha u fududeeyo. Wax walbana ilaahay ayaa laga baryaa. Hadaa ilaahay wax waliba aad ka barididna waad helaysaa insha allah. Marka nolosha sideeda banaana sabar ayay u baahan tahay. Nolosha hadaad wax waliba u sabirtid, maalin ayaad taankaaga gaari doontaa insha allah. Hadaad wax waliba aad u sabirtid, xumaha iyo samahaba haddii aad u sabirtid, horumar ayaad helaysaa insha allah. Walaalkayga qaaliga ahow ama walaashayda qaaliga aheeday, noloshaada qaraar iyo macaan intaba u samra ayaan idin leeyahay. Maalin ayaad hankiina heli doontiin, farxad ayaad heli doontiin, nolol aad u qurux badan ayaad heli doontiin insha allah. Ilaahay ayaana idin rumeyn doono. Asxaabteyda qaaliga meel walba adduunka ka joogtiin, sheekadii Maryan halkaas ayay ku dhamaatay. Nolosheedina farxad ayay ku waartay. Maasha allah. Qof walba adduunka ku noolna waxaan u rajeynayaa farxadaas la mid ayaan u rajeynayaa insha allah tacaala. Intaan dib u soo kulmi doono waxaan idin leeyahay walaalahayga qaaliga, caafimaad igu waara meel walba adduunka ka joogtiin dunida dacaladeeda. Waa walaashiin Deeqo. Channelkeygana waa Deeqa Xilna. Subscribe-ka, like-ga, share-ta, comment-iga intaba dhiirigelin ayay ii tahay. Ha iga iloobin ayaa idin leeyahay insha allah. Intaan dib ugu kulmeyno waxaa idin leeyahay caafimaad kheyr qabo insha allah. Mac salaamo. Bye bye.